بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتشغل يا شركة ضدك لما قعابي رجع دوربا حرامي والشقين اسمه يقانان ميلو يكود دوري دانا واحد روايين يجوا تيم والشقية مركا واحد بهاي نورت يجوا رسبرتان رجال بدن سويديان oo iyagoo iskaranaya tiim ahaana si wada shaqeyn doonaan garanaya ay shaqada bilaabaan qodobka labaad wuxuu ahaa wasaaradihii waa la soo raray qaar waa la soo koobay waxa la sameeyay hay'ado madax bannaan authority marka taalafteeda in la isla fahmo oo si wada shaqeynayaan hay'adihii in la isweydiiyo oo hay'adda masalan la yiraahdo waa hay'ad authority oo madax bannaan baarlamaan baneeyay wasaaradda shaqada kuma laha maariyaheeda leh waa line minister labada wasaaradood howlaha qaar bay iska soo galaan waa in la kala qeexaa oo shirkan aad ugu la fogura nidaaminta si ay dawladdu wada shaqeyso oo aanay gowrdho murug badan gelin marka wada shaqeynaya waxa kale oo faa'iido yahay dadku haddii xitaa marka wada shaqeynayaan wax dhex galaan way isgaranayaan oo wadada soo shiray oo isarko wax isweydiiyay oo wada xiriir karaan laakiin haddana isba aragba isba fahmi karaan marka shirkan inta ugu weyn maanta ee xoogga saarayna waa isbarashada iyo wada shaqeynta xukuumadda iyo inay isla fahmaan si ay u kala qeexayaan howlaha shaqo waxa soo raacaa intan wasiirada xubno fara badan oo madax bannaan waa dhowr iyo 60 imika inta madaxweyne saxaxay ee ay hay'ado madax bannaan afar baarlamaan waa dastuurka ogol ilaa dhowr isdoon kala la shaqeyn doona oo badankooda baarlamaanku baaskareeyay oo madax banneeyay waana meelaha dhibaatooyin ka dibadda marka gudaha laga wada shaqeynayo waxa kale oo ahaa qodobadii shirkan aynu ugu talagalnay markii la soo jeedinayay inuu goluhu noqdo mashiin gaariga oo kale mashiinkiisa bistanadu shidaal la weygubaan oo oxygen iyo waxa isku taga gas xaraaraduna dhowr boqol bay gaadhaa centigrade bistanaduna isma taagaan kor iyo hoos bay u shaqeeyaan haddana waxa ka soo baxa marka faray wiilka la dhaafo xoog gaariga hore u dhaqaajiyo oo midaysan intaasoo birood oo isweydaaranaya iyo mashiinka gubanaya waxa looga dan leeyahay inuu soo baxo machine force energy hore u dhaqaajiya dee shirarka iyo kooxda shaqaysana waa caynka xukuumaddu iyo goluhu inuu noqdo mid markuu isagu wada joogo dab ka kaco kulul wax isweydaaranayaa isdhaafaan isku dhacaan meel kulul noqota laakiin marka iridda laga baxo waa ka soo baxo xoog dhan wada jeeda muhiimadda la rabo shirkan inuu abuuro waka inuu gudihiisa dab ka kaco oo kululaado murankiisa iyo doodiisa iyo afkaartiisa markuu baxana uu mishin qulo dhan wada socdo noqdo intaa la isla fahmo ay xoog u weeraraysa hawlaha inoo yaalla way badan yihiin barnaamij waxaan soo galay olole siyaasadeed inta halkan joogtaa 3 qof haddii laga rabo 4 qof meelaha inta kale kaamilka waan soo wada galay dadka waxba inuu ballan qaado ballamo waaweyn baynu qaadnay inuu xisbi kulmiye ah barnaamij dhixtiira oo qurux badan oo dadku aamineen baynu samayn waxaan rabnaa in barnaamijkii la furfuro ilaa uu koobnaaye oo 23 wasaaradood mid waliba qorshaheedii la baxdo oo ay u samayso sanad 6 bilood 3 bilood qorshaha ka dheegan barnaamijka xisbiga iyo NDP2 isagana ay dawladda xukuumaddu samaysay wasiirkii waxa laga rabaa in aanu noqonin isagu qof routine dheeri u shaqeeyo qof murmayaane markuu hagaayo wasaaraddii inuu isagu qorshaha sameeyo dabeetana hawshii hawlmaalmeedka u dhaafo ku xigaan ama baarka directorkii iyo dadkii kala shaqeynaya iyaguna shaqeeyaan waxa iman doonta marka halkan laga tago wasiirku isna dadka loo soo bedelay iyo dadka cusub inuu wax fahamsiiyo wax dhow socdaan oo wada shaqeeyaan waxaanu kowdhaliya xeer ka yeelanaynaa aan ku wada shaqeyno dadkiina wada shaqeeya haddii waxaanu ku wada shaqeynayo waxaanu isku raacnay qof ka qaldamo maxaanu ka yeelaa waanu kowr jiraa lagu wada shaqeeya
haddaan imika halkan markaynu joogno aynu tiim nahay oo warrabo oo shaqeeyo markaynu halka baxnaa idhaahdo anigu waan soo jeediyey waa la idiiyey oo weli wasiirkii loo arkaayo inuu deegaan koris fasi ka soo jeedo uu keena dabada sii geliyo dee meel tegi mayno war iska hor imanayna marka waan idhaha kowd warniyo iska ilow deegaankaad ka timid marka la eegayo rijinado dhan wax ka boqotay dowladdu waa run laakiin rijinka aad ka timid iyo dadka amtalis waa inaan u jiidano inuu national wixii kale xaggaa u jiido waxaa laga rabaa ninka siyaasiga inuu soo jiido isagoo kala soosgiisa ama inad siyaasadii meeshii uu ka jooday inuu qaranka keena ayaa dee laga rabaa waana ta in badan dowladaha afrikaanku aanay samaynin ay dib u kala gurtaan ay deetana kolka dambaysa iyaga dib u kala yaacaan qodobadaynu qaadanna waa kuwa waxaynu u baahannahay 120 cisho hore maxaynu qaban karnaa ee runa guddidii qabanqaabadu qorshay soo samaysay waa kan qaar kaloo soo inana way jiraan waanu idiin keeni idina way idinku dari maxaa inoo suurtagal ah inuu qaadno waa ka horeysa dhibaatooyinka muhiimka ah ee hor yaalla saddex maan arka mid waa nabadgelyada marka la furfuro waa mid dibadda ah iyo mid gudaha ah ta dibadda waa la yaqaanaa ciidanka qaranka qaabilsan sahanka ama qolada wardoonka qaabilsan meel fog hadday tahay dadka wax kharbada iyo hadday tahay malaha cadow inagu soo duulaba iyaga u diyaara ta gudaha ayaa maanta culays badan kow dadkii oo qaybsan oo reernimadii ka xoog weyn tahay qarannimadii laakiin idinku waxay ilaahay ku mahadisaa intayna halkan fadhida nina reer quli ma soo dooran aniga reer ma soo dooran qaranka oo dhan baa doortay labadii mucaaradin way igu raaceen markaa reer sheegan karoo dabada jiidi karaa ma jiro qaar codii badiyo way jiraan laakiin dee qaranka oo dhan baa doortay iyagu meel waxma geeyaan wasiirada halkan fadhiyana nina odayaal iyo caaqil ma keenin mana ogeyn cid imanaysa codkii ummadda lay dhiibe awooddiisii ay maradkaasi ku yeedhay marka waa kana sii bedantihiin nin olola soo galo 2 oday iyo 4 oday iyo caaqil iyo reer hadhow u mana sheeganayaan waatan hoolkaa reer kula dardo aan kula ordayna ma lihidin mar hadday saa tahay qabyaaladii waxay noqotay awoodda qura duminaysa qarannimadii si cilmiyana oo policy dheer waan uga fikira laba faqrigii iyo shaqalaantu waxay keentay jeelal yara ma lihin waxaa loo geenayaa abujeerinkii 20 goor wax dilayay isagoo sidii ka adagoo dhagaxo nool badan kale buu soo baxaya waana taymkana haysata inagana xoogeen iyo resource-kan wuxuu ku dhamaanayaa booliiska oo 6 magaalo waaweyn habeen walba dagaal bay ku jiraan booliisku marka ciidan habeen walba magaalo dagaal ku jiraan teemu soconaya intaarkeena waa ognahay ka dhaawacmaya gaariga burburaya khasaaraha ku baxaya maxkamadihii way xidhayaan meel ay dhallinyarada ku hayaan ma hayaan waxa loo geenaya abujeerinkii casharkii hore dibadda ku yaqaanay ka weyn buu la soo baxaya xabsiyadu way buuxaan xabsiyaduna waxay la mid yihiin wixii la odhan jiray black of Calcutta way ka yihiin halkii loogu talagalay inay shaqo jiifaan 100 baa ku jira haddaa aragtaan oo soo eegtaan yani waxaad oranaysaa abaaru waxay ku dhacayaan waa maxaabiista dambiga ka gasheen waa mashkalad nabadgelyada khatar ku ah oo u baahan in si qarannimo looga wada howlgalo hadday weliba qolada maaragtay culimada awqaafta iyo diinta hawshaasi waxay ku leedahay mas-uuliyad weyn idinka in badan leh waayo 3 xaafadood masaajidadii baa ka badan aqaladii caadiga haymka dee masaajidada waa inay carruurta naga jeeyaan lacagtina waa dada haya sheekh wasaaraddu baa hawl yaraa daakhiliyada ka xoog weyn marka way jihayn karayaan jaarnimay abuuri karayaan mashkaladda darsi karayaan dabeeta waxaa la odhanayaa maxaynu xaggeena arrintaa nabadgelyada guduhu waa khatar aad u weyn oo aynaan dhayrsan karin oo inagu soo fidaysa oo talada ay noqoto boliisku ha qabto ha xidho waa ta gudaha dadka madaxda ah madaxweynaha ka bilow ilaa ninka xafiisar haya waxaynu u nugul lahay sharciga jabintiisa waxaynu u nugul lahay wasiir walba ka daakhiliga ha u badnaadee markuu dambi dhaco
naf bini'aadmiga ugu weyn wax la gooyo markuu qofku nin dilo ee uu soo qabto daakhiliga waxaa dul imanaya in allii inta deegaanka ka soo jeeda ee la ixtiraami karo suldaankaa imanaya taajirkaa imanaya sarkaalkaa imanaya wasiirkiisa kale kollegiisa imanaya akaabirta kula jira waxaa maahay arrintaa reeri baa ka heshiinaya ee waa la dhammaynaya inaga fudayd markuu inta kale iska xajiyo waxaanu dhaafi karaynin kareerka wasiirka kaabirta kula jira taliyaha saldhigga iyo ninka ciidanka xukuumadda booliiska taa tulag ma haysato markuu qofkii dambiilaha qabto weerar baa lagu qaaday qaranka oo dhan lama sugaayo xataa dembigaa in intiisa laga fuliyo waxyaalaha ugu culculus waxaa ka mid ah ee u baahan inaynu xoogga saarno oo aan la fudaysan waa kala dambeynta markuu qofka dembiga xeerka uu jabiyay aan la qaban karo waxaa hawl weyna kufsiga waxaa la yaab la kufsigu wuxuu inoogu kordhay si boqolkiiba 400 ah 20 sano u dambeeyey intii aan dalka joogay macquul ma aha inaynu intii aan dalka joognay inagu aanu maamulaynay inuu kufsigu ka bato sanadihii hore oo weliba uu noqdo wax la dhageysan karo oo aan la yaabin oo aad maqlayso 10 inan oo xaafadda inanta iskarayaan oo jaarkooda ah oo inay hebel isu garanayaan islaan inan midaba aan dhaafinayn inay 10 wadar ku soo oo ciqaabtooda noqoto oo dalba ka heshiiyay xataa waxa dhimatay dhaqankii qabaliga ahaa ninka inaan faraxmeeya wala dir jiray reerka ka baqan jiray inaan reerkooda ka baqan jiray xataa kiiba jawaab fududaaday markii magaalooyinka leeyihiin waa hawlaha qodobada ugu waaweyn ee dowladda inoo horyaala waxaasoo dhan waxaa keenay badankooda waa faqri wasaaradda maaliyadda cashuur rabada kastama inagu wada kari mayso balberiyo wajaale qaran inoo wadi maaya hawsha inoo taala wax soo saar baynu u baahannahay miisaaniyaddana waxa ugu yar wax la siiyaa waa warshada kuwa wax soo saaraya wasaaradaha soo saaraya ugu yar haddii la isu wada geeyo TV-ga qarankaa ka badan baa laga yaabaa lacagta ku baxda markaa beerahii iyo xoolihii iyo kalluunna miisaaniyad ma siino oo wax kama soo saarno propagandadii iyo raadiyoga TV-ga Yurub buu gaaraa iyo Maraykan buu gaaraa dee maxaanu lacag TV-ga galnaa waxaanu gaarsiinaa ma hayne haddayna waxba shaqaynin quruxba ma hayne maxaanu TV-ga marihii TV-ga iyo ahla daayada cadda ma yaraynayo wasiirka iyo waxaan aqrinayn wasiirka cusbaa kuma soo socdo laakiin waxa u baahan tahay shirkan isku weydiino war horta waxbaanu soo saaraa mise waxbaanu fidina marka dhibaatooyinkan hor yaalla ma yara waxa kamid ah ku darstaan qorshaha aan ka wadaysaan bisha March 2019 waxa laga rabaa doorashadii baarlamaanka ee dowladda hoose waa sanad waxa soo haluu horyaala doorashadii madaxweynuhu aynu la raadinay sumcad weyn oo ictiraafka intii laga doonayay in badan inoo dhaweysa ayay qaad hadday taasi inagu dahadona haddana dhaa kuristimo kale aanu gallo waa dib u dhac kale ta kalena xaqba ma aha wakiiladu wax fadhaan 12 guurtuna waxay fadhidaa 20 qoladan dowladda hoosena way sii durkayaan dee doorashadii inuu ku qabanaa ayaa laga doonaya sanad marka waxa qodob naga saari karaya ilaahayna ha u gargaaray wasiirka batroolka iyo macdintu hadduu intaa wax naga soo gaarsiiyo ya marka dee inaynu practical noqono oo shirarka caynkan oo kale waxyaalaha inoogu muhiimsan aynu dusha ka sii wada hayno oo in wax isla eegeegno oo waxa laynaga sugaayay iyo waxa hor yaala aynu garanaa waan ku soo koobayaa dadka aniga wararkaygu hayaa waxa weeye marka expectation marka rajadu aad u weetay qof waxay dadka gelisay inaynu 3 bilood hore 4 bilood hore dee wax weyn aan bedelo ariga waa xidhay kamana hadalo waxa mudaan hoos u dhigo waxa mudaan labadii intii yarada aynu kasoo ku caraarina soo ururayso Charles ka badan baan hor yaala anigu dee waan coordinate gareeyaa oo ragga laga soo yeeray xilaan ciidankan haystaana waa idinka commandos aan leeyahay waxa soo burburiyaan waa idinka marka waxaan isku dardaarnaa aniga idinku waxa aynu hor yaala inaynu aad nooga fikirro maxaa dhabaynu qaban karaana xaqiiqa istaagno
propagandada iska yarayno maxaan ku rahdaa kolba taagteena talaabsana inagoo daacadda ilaahay la kaashanayna midnimadana ku shaqayno mucaarad baadan caayo jaraad baadan caayna aynaan dhagu dhigana wixii dhabunbaa runtunbaa socotee la ogaado mucaarad iyagana xaqoodan siinayna mucaaradaynu ogol lahay wada shaqaynta qarankeenu ka ogol lahay kaashgoodaynu u baahana inay dhaliisheena sheegaan dalkana wada dhisano spaceka inaynu dhaliilaan aynu siino iyagana aynu ku soo dabaalle xirdaa war waxma wada qabana iyaynaan weel mara yanaa isku weydiinaya intaynu dhibaatayna horta ayaa badane ma wada shaqeyna waan iyagana ka soconaa dee intaan kusoo koobo intaasoo wada ogeedeen un baan ku celiyey waxaad og tahay makuu sheegaa un baan ku celiyey waayo waa intay dhibaysa intaan iska doonaya waa kaa kaftanka halkan ka soo baxay waxaa la yidhi qoladii wasiirada ahayd qoladii dhalinyarada xafaalin jirtay xalay kaftanka laga keenaya waxa weeyaan kaftan wanaagsan bay kasoo waxay idhahdeen meesha askar baa qabsatay dadka waa loo wada xiiraya waxaa laga dhigaya askar markaa wasiiradii baa lagu horreysay xalna lagu xiray way iska wanaagsan tahay ya haddii madaxa la isu xiraya haddii objac la isceelsadayba wixii la shaqa ku soconaysa la isugu tago waxa ugu horreeya kala dambeynta ismaqalka marka hadday ka bilaabato waxay tahay wax dhacda ma aha marka insha Allah waxaan codsanayaa nin oo sii xiran maanta Brito saan la odhanin hadal xiran baaya saan la odhanin marka waa la soo xiray qolada bidaarteeda koofiyadaha qaatay ina ka aad iyo aad baa wasiirtay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi